kulanti wanaagsan kusoo dhawaada barnaamijkeenan xogaha dunida oo aan kusoo gudbinno warbixinada Soomaalida iyo xogta caalamka ee degal kasta. barnaamijkeenan waxaan kusoo gudbin doonaa Ilhaan Cumar oo weerar isdaba jooga kala kulantay Yahuudda Israa'iil tan iyo markii ay dheeracaysay Israa'iil iyo muuqaal ay ka sameeyeen oo uu diiday Facebook in la tirtiro. warbixin ayaad dhegeysan doontaan hanjabaadaha isdaba jooga ah ee dilka Ilhaan Cumar ay kala kulantay Israa'iiliinta. weligaa ma isweydiisay maxay tahay sababta madaxweynayaasha iyo siyaasiyiinta Mareykanka ay u taageeraan Israa'iil? maxaase isku xidha? xog muhiim ah ayaad dhegeysan doontaan iyo xogo kale oo dheeri ah. aan ku hormarnay hogaamiyaasha dimuqraadiga ayaa gadaal ka riixaya olole xayeysiin ah oo ay American Israel Public Affairs Committee ay bilaabeen oo lagu bartilmaameedsanayo xildhibaan Ilhaan Cumar oo dhalishay duqeynta Israa'iil ee Gaza iyadoo ka jawaabaysay weeraradii ay Israa'iil ku qaatay Gaza. xayeysiinta Facebook la geliyay waxaa ku jira sawirada Ilhaan Cumar oo ay la socdaan kantaalaha Xamaas, waxaana la soo geliyay barta Facebook oo malaayiin lacag lagu bixiyay si loo helo daawadayaal badan. xafiiska Ilhaan Cumar ayaa sheegay in ay kala kulantay hanjabaado isdaba jooga tan iyo markii muuqaalkaasi Yahuudda ay Facebook geliyeen. Facebook ayaa diiday in meesha uu ka saaro xayeysiinta sida weyn loo daawaday oo la xidhiidha Ilhaan Cumar iyo Xamaas, xitaa kadib markii kalkaaliyaasheeda Ilhaan Cumar ay u sheegeen shirkadda tiknoolajiyada ee Facebook in fariinta ay tahay mid aan sax ahayn oo aan nacayb iyo hanjabaado dil ah mid sababaysa. murankani ayaa sii horinaya xiisadda u dhaxaysa Facebook iyo sharci dejiyaasha dimuqraadiga oo sheegaya in shirkadda Facebook iyo shirkadaha kale ee baraha bulshadu ay adeegsadaan barnaamijkooda ka dhanka been abuurka oo la og yahay, waxayna diideen inay dhegaysato qayladooda ku saabsan cawaaqibka dhabta ah ee ka dhalan kara hadallada internetka. xafiiska dimuqraadiga ee Minnesota ayaa markii ugu horeysay la xiriiray Facebook talaadadii kadib markii uu daawaday xayeysiiyada ka socda ololaha Israa'iiliinta ee guddiga Israa'iil ee arrimaha bulshada ee Mareykanka. mid ka mid ah xayeysiiyada ayaa wejiga Ilhaan Cumar waxaa dul saaran kantaal Xamaas ah iyadoo lagu qoray qoraal ah markii Israa'iil bartilmaameedsato Xamaas, Ilhaan Cumar waxay ugu yeedhaa fal argagixiso. xayeysiintan ayaa marin habaabaysay qoraal ay soo dhigtay Ilhaan Cumar toddobaadkii hore, taas oo ay ku sheegtay in duqeymaha cirka ee Israa'iil ku laayeen dadka rayidka ah ee Gaza aysan si gaar ah ugu dhawaaqin Xamaas inay ahaayeen fal argagixiso, sida sheegtay Washington Post oo ka mid ah warbaahinta ugu nacaybka yar marka la joogo Mareykanka. xafiiska Ilhaan Cumar ayaa uga digay shirkadda in sawiradeeda oo ay ka mid yihiin wejigeeda ee weerarada Xamaas gantaalahooda ay si toos ah u dhiirigelinayso hanjabaado dil ah oo iyada ka dhana kalkaaliyaasheeda iyo Facebook. email ugu sheegay Washington Post ayaa sheegtay in Facebook markii hore ay heli weyday xayeysiinta, balse kadib saacado ay qaadatay dib eegid ay ku samayso shirkadda si loo ogaado in ay ku xadgudubtay siyaasadda shirkadda. xayeysiintan ayaa qayb ka ah taxneen lagu bartilmaameedsanayo sharci dejiyaal ka tirsan Mareykanka oo ay ka mid yihiin Bernie Sanders, waxaana xayeysiinta Facebook lagu qiyaasay in ay arki karaan dad ku dhow 1 milyan. afhayeenka Facebook Andy Stone ayaa xaqiijiyay in shirkadda ay go'aamisay in xayeysiinta uusan xadgudub siyaasadeed ahayn. si kasta ha noqotee, shabakadaha bulshada ayaa diidaya xayeysiisyada inay yihiin been. shirkadduna waxay xafiiska Ilhaan Cumar ugu sheegtay isweydaarsiga emailka in xayeysiiskan uusan ku xadgudbin sharciga shirkadda. arrintani ayaa daba socota dhaleecayn muddo dheer socotay oo ah in Facebook iyo shabakadaha kale ee bulshada aysan wax badan ka qaban sidii haweenka midab kale looga ilaalin lahaa nacaybka iyo kicinta waxyaabaha ku jira internetka, xitaa heerka ugu sarreeya ee uu gaadhay xafiisyada siyaasadeed ee Mareykanka. xafiiska Ilhaan Cumar ayaa u sheegay shirkadda tiknoolajiyada in ay aad uga walacsan tahay Facebook sii wadida ka faa'iideysiga nacaybkani. tan ma aha markii ugu horeysay ee shirkadda tiknoolajiyada ay diidaan in laga saaro waxyaabaha lagu bartilmaameedsanayo Ilhaan Cumar oo walaac muujinaya nacaybka sii kordhaya. sanadkii 2019 shirkadda Twitter waxay diiday inay qaado wax tallaabo ah oo ka dhana qoraal uu soo saaray Donald Trump oo ugu yeedhay Ilhaan Cumar iyo dhowr xubnood oo kale oo ka tirsan xisbiga dimuqraadiga in ay dib ugu laabtaan dalkoodii. Twitter ayaa sheegtay in fariintaasi aysan ku xadgudbin siyaasadooda, laakiin ay keeneen eedeymo baahsan oo midabta koor ah. waxaana lagu eedeeyay Twitter sababta ay uga gaabsatay in tallaabo ay qaado. diidmada Facebook ee ah inay ka saarto xayeysiintan ayaa sii horin karta xiisadda ka dhex taagan xildhibaanada xisbiga dimuqraadiga kuwa oo sanado badan dhaleecaynaya shirkadaha in ay aad ugu gacan sareeyaan been abuurka ee ka dhanka ah haweenka muslimiinta iyo kuwa midabka leh sida Ilhaan Cumar. hogaamiyaasha xisbiga oo ay ku jiraan afhayeenka aqalka wakiilada Nancy Pelosi
iyo hogaamiyaha aqlabiyadda waxa ay dhaleeceeyeen xayeysiintani. Pelosi waxay sheegtay inaysan ku raacsanayn mowqifka Ilhaan Cumar, laakiin waxay sheegtay inay tahay wax laga xumaado in la arko xayeysiintan qotada dheer ee xanaaqa abuuraysa ee qaloocinaysa hadalka Ilhaan Cumar. Pelosi waxay dhaleecaysay Facebook inaysan ka saarin filimka. marka laga soo tago in Facebook uu meesha ka saaro xayeysiinta xafiiska Ilhaan Cumar, waxa uu sidoo kale ugu yeedhay shirkadda Israa'iil ee fadhigeedu yahay Mareykanka ee IBAC in ay raaligelin bixiso. Isbarne Beren oo ah ku-xigeenka agaasimaha isgaarsiinta ee xafiiska Ilhaan Cumar ayaa ugu yeedhay xayeysiintani hadallo nacayb ah oo loo qabo muslimiinta. waa khatar cad oo fudud ayay tiri. shirkadda fadhigeedu yahay Mareykanka ee guddiga Israa'iil ayaa difaacday xayeysiintani in ay tahay mid saxa. bayaan ay soo saartay waxayna ku sheegtay inay sii wadi doonto dhaleecaynta xildhibaanada doonaya inay wiiqaan taageerada Israa'iil ee Mareykanka. xayeysiinta ku saabsan wakiilka Ilhaan Cumar waa mid gebi ahaanba cadaalada, ayuu sheegay afyeen u hadlay shirkadda. xayeysiinta ayaa sii xumaynaysa xiisadda dabada dheeraatay ee u dhexaysa Ilhaan Cumar iyo qolyaha taageera Israa'iil ee fadhigoodu yahay Mareykanka. Ilhaan Cumar ayaa wajahday dhaleecayn xoogan sanadkii 2019 qoraal ay kaga hadlaysay Israa'iil in xulafada Israa'iil ee siyaasadda Mareykanka ay ku kaliftay lacag, laakiin aysan ahayn mabda ay la jaan qaadayso Mareykanka. si kasta ha ahaatee, madaxweynaha dimuqraadiga Joe Biden oo dad badani ay filayeen in wax badan uu ka duwanaan doono siyaasaddii hore ee madaxweynihii ka horreeyey ee jamhuuriga Donald Trump, ayaa toddobaadyadani waxaa dhaleecayn uu kala kulmay qaar ka mid ah xisbiga dimuqraadiga, gaar ahaan muslimiinta iyo siyaasiyiinta kale ee madow, iyadoo lagu qiyaasay inay kordheen tirada muslimiinta dimuqraadiga tiradii ugu sarreysay oo gaadhaysa 12%. marka maxay madaxweynayaasha iyo siyaasiyiinta Mareykanku u taageeraan Israa'iil si aan gambasho lahayn? jawaabtu ma sahlana, laakiin waa aragtida dadweynaha Mareykanka. joogitaanka Israa'iil ee bariga dhexe oo cadaawad leh iyo sida ololaha siyaasadeed ee Mareykanka uu ciyaarayo qayb gaar ah oo ay u fududeyso Israa'iil. xasuuqii Holocaust kadib markii Israa'iil ay dowlad noqotay 1948 Mareykanka ayaa ahaa dalkii ugu horreeyay ee aqoonsada. intaa waxaa dheer, tan iyo wixii ka dambeeyay dagaalkii labaad ee dunida, markii dagaalkii qaboobaa u dhexeeyay Mareykanka iyo Midowgii Sofiyeed uu saameyn xoogan ku lahaa gobolka. Israa'iil waxay caawisay siyaasadda Mareykanka bariga dhexe oo leh kaydka saliidda dunidoo dhan uga sarreeya iyo marinbiyoodka istaraatiijiga oo ay ku jiraan kanaalka Suez. waxa uu ahaa goob dagaal oo muhiim u ah saameynta awoodda. Mareykanku wuxuu kala wareegay awoodaha reer Yurub ee sida daran uu u wiiqay, isagoo ahaa aas-aasaha koowaad ee awoodda reer galbeedka ee bariga dhexe. abuuritaanka Israa'iil siyaasad istaraatiijiyadeed oo u baahnaa xidhiidhka dhow ee Mareykanka Israa'iil ay samaysteen sanadihii ku xigay ayaa xoogaystay, iyadoo ay ugu wacan tahay ka qayb qaadashada Israa'iil ee dhaqaalaha Mareykanka, farshaxanka iyo warbaahinta. ra'yiga dadweynaha ee Mareykanka ayaa sidoo kale u janjeera Israa'iil. sida laga soo xigtay ra'yi ururin la sameeyey, waxaa lagu ogaaday in 58% dadka Mareykanka ay aad ula dhacsan yihiin Israa'iil. aqlabiyad badan oo ka tirsan Koongareeska Mareykanka iyo xisbiga jamhuuriga ayaa ah taageerayaasha Israa'iil. afhayeenka aqalka wakiilada Nancy Pelosi iyo hogaamiyaha aqlabiyadda dhammaantood oo dimuqraadiyiin ah waxay leeyihiin diiwaan dheer oo taariikhda ay ku taageeraan Israa'iil ah. si kasta ha noqotee, muddooyinkii ugu dambeeyey codadka taageerada Falastiin ayaa ku sii kordhayay Koongareeska. inkasta oo ay ka mid tahay wadamada dunida ugu qanisan, haddana Israa'iil waa tan ugu badan ee kaalmada Mareykanka ka hesha. sanadkii 2019 waxay heshay 3.8 bilyan oo ah kaalmo military oo Mareykan ah. aragtiyaha siyaasadeed ayaa u arkaa in Mareykanku uu si gaar ah ugu weecanayo Israa'iil, isaga oo la leh xidhiidh diblomaasiyadeed wadamada kale ee gobolka oo ay ku jiraan Sacuudi Arabiya iyo dalalka Islaamka ah. sababta ugu weyn ee guddiga u ah taageerada Mareykanka uu siiyo Israa'iil waxaa ku cadaadisay sida diblomaasiyiintu ay aaminsan yihiin, maadaama Israa'iil ay ku dhex taalo gobol intiisa badani ah dunida Islaamka ah, gaar ahaan dalalka Carabeed oo salka ay ku hayaan in Israa'iil ay noqoto midda ugu awoodda badan gobolka. wadamada ugu dhow ee dalalka Islaamka ah ee Carabeed, Mareykanku waxa uu ahaa kii ugu horreeyay ee ka qayb qaatay in la burburiyo awooddooda. sidoo kale, in cadaalad dunida aysan ka jirin waxaa lagu ogaan karaa in Mareykanku uu taageero indhala-aana uu siiyo Israa'iil, isagoon marna ku cadaadin dimuqraadiyadda.
netanyahu waa hogaamiyaha keliya ee gobolkaasi ee xilka haya wax ka badan 25 sannadood. maraykanku uguma yeedho inuu yahay keligii talis. madaxweynaha turkiga Recep Tayyip Erdogan oo la wadaaga gobolka bariga dhexe waxa uu qabtay doorashooyin isdaba joog ah, waxaana maraykanku ugu yeedhaa keligii talis, taas oo caddaynaysa sida maraykanku u doonayo weli inuu burburiyo tirada yar ee ka hadhay awoodaha gobolka ee islaamka ah